Gilberto Marjo, Harry Thomas, Mustafa Mahjour, Muganga dhammaan magacyadaasi waxay ahaayeen kuwa uu sheegan jiray calooshiisa u shaqaystay Faransiiska ahaa ee colaadaha ka macaashi jiray Master Robert Dinar oo lagu naanaysi jiray Bob Dinar kaasoo waqtiyo adag ka soo maray dagaalkii qabooba saameyn badanna ku lahaa dagaaladii sokeeye ee qaaradda Afrika ka soconayay sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii ee qarnigiina dhaafay. Robert Dinar oo muddo 40 sano ah ku dhex jiray dagaalo kala duwan ayaa aaminsanaa in dilku yahay shaqo kamid ah ragga dagaalada ku jira isla markaana aanu ka murugoonaynin dadkii uu gacmihiisa ku laayay iyo kuwii kale ee ay kooxdiisu dilayeen. qaacidada guud ee dagaaladu waa inaad wax dishaa haddii kale adiga ayaa meed noqonaya. dhammaan ragga iska soo horjeedana rasaas ayay isdhaafsadaan. suuragalna iima aha inaan waqtiyadii aan soo maray soo ceshado mar kale. xilliyadii ugu adkaa ee Bob Dinar ku dhex jiray colaadaha uu lacagta ku qaadanayo ma ahayn mid shaki gelinaya waxyaabaha uu colaadahaasi uga qaybta yahay. ma nihin dad dulmi wada waxaanu nahay rag difaacaya fikrado ay aaminsan yihiin diyaar waxaanu u nahay inaan naftayada u hurno baaritaanka himiladaas iyo xaqiijinta afkaartaasi. maxay tahay afkaarta uu Bob Dinar ka difaacay colaadaha uu ku galay dalalka galbeedka Afrika ilaa Kurdistan ama Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ilaa Jasiiradda Comoros? jawaabtii su'aalahaasi laga bixiyay iyo sababihii loo aaneeyay howlgalladiisa waxa ugu weyneed in Bob Dinar uu ahaa askari u dagaalamayay inuu helo adduun lacageed iyo hanti kalaba isagoo ahaa calooshiisa u shaqaystay u adeegaya dawlad ajnabi ah ama jabhad ku kacsan si uu ugu helo maal adduunyo. waana volunteer isu arkayay inuu ku wanaagsan yahay taliye ciidan hogaamin kara dagaal xilliga socda. dadweyne kala duwan oo isugu jira suxufiyiin xubno u dooda xuquuqda aadanaha iyo waliba qaar kamid ah xubnihii la socon jiray isaga ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay howlgallada uu muddada dheer ku dhex jiray Bob Dinar. si sahal ah waxaynu u oran karnaa waxa uu ahaa nin qaatil ah oo dambiyo badan galay in lala xisaabtamana ay ahayd. wuxuu u dagaalamayay si uu rajo ugu sameeyo jiilalka ka dambeeyay oo ahaa shacabka ku nool jasiiradda Comoros. qisada ku saabsan Bob Dinar waxay ka bilaabanaysaa koonfurta dalka Faransiiska halkaas oo uu ku dhashay muddo haatan laga joogo 80 sano. tani waa hooyaday anna waa anigan ku sawiran toga hoostiisa. hooyaday waxay ahayd qof caadifad badan. aabahayna waxa uu galay dagaallo waaweyn oo ka mid ahaa dagaalkii labaad ee dunida. sanadkii 1929 Bob Dinar waxa uu ku dhashay duleedka magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska. sanadihii 40-meeyadii ee isla qarnigii 20aad waxa uu ku biiray ciidamada isagoo galay dagaalkii ay Faransiisku kaga soo horjeedeen hogaamiyihii Vietnam ee Ho Chi Minh. goor dambe waxa uu ku qancay inuu ka baxo ciidamada. waxaan ka tegay ciidamadii iyo askarinimadii aan xiisayn jiray waxay ahayd waqtiyadii ugu adkaa. Bob Dinar waxa uu ka helay wargeysyada dalka ka mid ah qiso ka hadlaysay calooshiisa u shaqaystihii weynaa ee Sao Paulo oo ka dagaalamayay maamul goboleedka Katanga ee dalka Congo. kadibna waxa uu go'aan ku gaaray inuu u hayaamo dhanka qaaradda Afrika si uu askarinimadiisa ugu shaqaysto oo ugu macaasho oo maal badanna uga kasbado. waxaan doonayaa inaan halkan idinku caddeeyo waqtigii aan ku qaatay gobolka Katanga ee koonfurta dalka Congo waxay ahayd tijaabo qani ah. waxay ahayd meel aan tababarkaygii u horeeyay ku galay waxaana u muuqatay mid u weyn bilow